suuqyada magaalada Muqdisho gaar ahaan goobaha lagu iibiyo dharka ayaa laga dareemayaa mashquul xoogan. waalidiin iyo caruur ayaa lagu dhex arkayaa goobo ganacsi si ay ugu dukaameystaan. Hashim Maxamed ayaana ka mid ah. والله marka hore waxaan ku labisi jirnay qamiis caadi ah haday Sacuudiyaan yihiin haday Imaaraat yihiin laakiin sanadkan waxaan noo dhar Marookaan dharka caruurta wax badan iska bedelay sanadkan waxaan xasuustaa inuu keenay dhar Hindiyaan sanadkan inuu anagii caruurta isku mid naga wada dhigay marka maaragtay qamiis Marookaanka ciyaalkan uu keenay dadka weyn uu keenay waxa si dheer kabihii iyo jeenisidii iyo Turkiga ahaayeen waxa soo dhan wada yaalan laakiin qof walba targetkiisa asuu gooni u yahay. isbedel xoogan ayaa u dhaxeeya qiimaha dharka la iibiyo marka la eego ciidihii ka horeeyay sida ay qabaan dadka qaar. Fartuun Amiin ayaa tilmaam ka bixinaysa. farq weyn u dhaxeeyo ciidii hore iyo ciidan farq aad weyn u dhaxeeyo. ciidan dharka socdo ma sha Allah oo jilicsan aan kulleen ilmaha ma sha Allah istayl ahaan iyo ilqabad leh aad iyo aad marba ciid waasi had ciid hore ciidan qiimaha waa difference weyn u dhaxeeyo. ciidana xogo isla xogo dadka macquul yihiin qaal zayd ahayn. ganacsatada ayaa ku mashquulsan u adeegida macaamiishooda. mid ka mid ahna waa Cabdalla Axmed. waxaan iibinaa kabooyinka ciyaalka iyo dharka ciyaalka iibinaa waqtiyada kalena ciida laga baxay dharka caadiga iibiyaa oo ragga waaweyn sida saraawiisha jeenisyada oo saraawiisha kaakiyaalka oo kale funaanadooyina iibiyaa laakiin ciidii oo kale waxaan dhax gashtaa dharka ciyaalka maadaama ciyaalka aad u socod badan yahay normal waay ma sha Allah ciidan waa fiicanta ayadana tii horena aad u fiicnaad tan iska normal waay dadkana hadda waxa maleysaabo ciidan adeegin oo yani ka soo hormareen aad u adeeganayaan waxaan dhihi karaa sanadkan qiimaheega inuu macquul yahay oo sheeg isku joogiyo kale lacag macquul la siisto surwaalka shaatiga ma kala saarayo kale wax macquul ah qofka culays ku dareemeenin hatta qofka markuu arka dharka quality uu leeyahay wuxuu sameeyaa cunuga markuu hal joog ugu talagalay kale laba joog ugu dhigaa laba joog loo qaadaa ciyaalka kaliya halkan oo ah suuqa Xamarweyne kama socota diyaar garowga ciida Soonfur si la mid ah suuqyada kale ee caasimadda ayaa aad loogu dareemayaa mashquulka xoogan ee ka jira. munaasabadda ciida Soonfur ayaa inoogu harsan maalmo kooban.